سلام marka koowaad waxaan salaamayaa dhammaan akhyaarta halkaan isugu timid ee ugu horeeyay wasiirkii hore sportsmanka caanka ah Saciid Qorsheel macallin Scott iyo dhammaan ragga kale hadda sportiga maamula tiiman badan soo maray referee internationalka mooge dhalinyarada kooxda mini footballka dhammaantiin waa idin wada salaamaya waxaan ilaahay assalaamu calaykum taaka bacdi runtii anigu waxaan ku barbaaray magaalada Muqdisho sportigan waxa ugu dambeysay waagii ay ciyaari jireen kooxdii horseed oo Scott ka tirsanaa teamkaas magaciisa wali wax xasuustaa hadaa markaa soo fariistay ku dhuftaan Scott haye ragaagii yaa ka nool magaciisa waanu sheegay teamkii markuu Saciid Qorsheel asna basketballka ciyaari jiray ee uu ka tirsanaa ayagana magacyadooda wada xasuustaa laakiin barigaasaan ka dhacay sportigi hawla kalaan galay adduunyo kalaan aaday waxyaabo kalaan iska galay aakhirkiina ganacsi iyo xasan u badnaa haddana siyaasaddan soo galay hadda markaan mid baa macallinkii ugu update gareeyay oo mini footballka ama kubadda cagta yaraha caawaan bartay hore uma aqoon runtii markaa aad baan ugu faraxsanahay tadawurka cusub iyo maaragtay federationkan cusub ee kubadda cagta ku soo biiray oo dhalinyarada fursad ballaaran siinaya marka dhalinyaradan oo federationkan jiray muddada kooban oo 6 sano ah oo dhalinyarada inta leeg ay engagement ka sameeyay ama ay qayb ka noqdeen ama u fududeeyay ciyaaraha iyo in dadaalkooda la aqoonsado si caalami ah waa arrin runtii aad muhiim u ah dhalinyaradanadana runtii waa ugu bogaadinayaa waan ugu hambalyeeynaa dadaalka ballaaran ee muddada kooban ay ku soo dhaliyeen guulahan ah inay ismaamulaan inay xiriir kubaddooda ay dhistaan inay caalamka ka qayb noqdaan inay tartamada caalamiga ka qayb galaan ayagoo laga yaabo taageerada ay haystaan iyo dhaqaalaha ay haystaan iyo resource-ga ay haystaan inuu aad u yar yahay marka runtii aad baan idinku hambalyeeynaa oo aan idinku bogaadinayaa dadaalkaas iyo guushaas aad magaca Soomaaliyeed aad u soo hoyseen oo markastoo aad guul tagtaan markastoo caalamka ka qayb gashaan markastoo tartamada caalamiga aad ka qayb gashaan oo magaca Soomaaliyeed qayb gashaan kulligeen bay waxay noo tahay sharaf kulligeen bay waxay noo tahay haybad kulligeen bay waxay noo tahay guul marka dadaalkaas waxaan leeyahay si wada ha ka daalina wax kastoo la raadiyo waa laga daba tagayaa marka ilaa guusha u dambaysa la xaqiijiyana mar walba waa la kufaa waa la dhacaa haddana safarkan aadi doontaan waxaan runtii wadan kugu habalyeeynaa waxaan rajaynayaa inaad guula kaga soo gaartaan haddaydan koobka iyo waxa meesha la isku haysta aydan keenin waxaan rajaynayaa inaad meel wanaagsan ka soo gashaan inkastoo haddana loo sheegay inaad koox adag ku jirtaan oo la yiraahdo groupka dhimashada aad ku beegantihiin oo tiimamkii ugu adkaa Afrika aad ku beegantihiin Masar iyo Nigeria iyo Ghana iyo nimankii koobka qaadi jiray oo laga yaabo inay si xoog ah u tababaran yihiin si xoog ah ay maaragtay u xoog badan yihiin laakiin mar walba determination ka muhiim ah yani adkaysiga iyo dadaalka marka insha Allah waxaan rajaynayaa guul inaad ka keentaan magac wanaagsan aad ka keentaan sportiga waxa weeyaan training iyo discipline iyo adkaysiga marka intaba waxaan leeyahay waalidiin macallimiin muhiim ah oo wadankan sportigiisa taariikh ku leh ayaa caawidin la jooga idina hormuud marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad soo guuleysataan aniga musaada kulligeen hadda aad sheegteen aad go'do garanaysaan musharax madaxweynaha ahay waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaan hoggaanka dalka ku guuleysano si aan dalka wax uga bedelo hoggaankiisa wax uga bedelo dawladnimadiisa wax uga bedelo hay'adihiisa aan dib u habayno ama reform wax yar ugu sameeyno oo tayayno ay u yeeshaan waxtar bulshada ay ugu yeeshaan waxyaabaha aan rabno runtii inaan wax ka bedelano waxa kamid ah sportigu waa muhiim waxa la jir caafimaad qaba aqal caafimaad leh waxa weeyaan industry aad u ballaaran oo waxtar leh bulshada wax u tar leh wax soo saar leh jirdis leh qalbi dhis leh lacag samaysa marka runtii haddaan taariikhda sportiga dib u fiirna waagii kacaanku dalka qabsaday wax badan baa la qarameeyay warshadii baa la qarameeyay beerihii baa la qarameeyay bangiyadii baa la qarameeyay sportigii baa la qarameeyay fankii baa la qarameeyay
wax kasta waxay noqdeen wax dawladdu leedahay oo hoos taga qof kastana wuxuu ahaa qof u shaqeeya dawladda iyo nidaamka dawliga hoos jooga marka qaramayntaasi waxaabihii ay keentay waxaa ka mid ah inaysan isboortigii dadkii ka shaqaynayay aysan kobcin xagga dhaqaalaha oo qofkii mushaar yar buu qaataa marka mushaarkaasi wax weyn ma tarayo anu marka waxyaabaa runtii aan ku fakerayay waxaa ka mid ah beri dhaweyd baan waxaan tagay Kismaayo marka beri horena mar baan reer Kismaayo ahaan jiray marka rag isboortiga ahaa oo berigii aan meesha daan jiray Kismaayo waxay ahayd meelaha aad caanka uga ah isboortiga Soomaaliya oo rag badan oo kubadda cagta ciyaar ay ka soo baxeen oo aan hadda hebel aan oran karno rag marka aan isku naqaanay oo Bruneiga aan ku ogaa meesha ku aragnay macallin qariidi iyo Cabdisamed nin la yiraahdo aan isku aasaan jirnay marka waxaan booramo marka Semberi waa sheeganayaan isboortigii inuusan dhaqaale lahayn dadkii isboortiga ciyaariyay ama maamulayay inay jirto resource la'aan inay jirto dhaqaale la'aan inay jirto garoomadii aan horumarsanayn inay jirto qalabkii ciyaaraha oo aan mar walba la helayn marka wixii sidii ciyaarihii iyo isboortigii uu kobco oo macno u yeesho marka waxaan ku yiri waxaan rabnaa bal aragtida isboortiga Soomaaliya lagu maamulo iyo qaabka uu dhisan yahay wax ma ka bedeli karnaa ma commercialize garayn karnaa ama private ma ka dhigi karnaa sidii isboortigii iyo dadkii ciyaariyay iyo dadkii maamulayay sida caalamka oo kaleeto ay u noqoto industry private ah tiimamku aysan dawladii lahayn ay yihiin tiimamka in qof leeyahay ama shirkad leedahay garoomada ay ku ciyaarayaanna lacag lagu galo lacagta ka soo baxdana tiimku uu leeyahay wixii canshuur looga qaata iyo wixii garoonka hadii laga ijaaro looga qaata maahane marka run ahaantii inaanu qaabka isboortigeena loo maamulo oo u dhisan yahay aanu dib u fiirino wax ka bedelo tayayno waxay ka mid tahay aragtidayda siyaasiga marka insha Allah taala haddii aan ku guuleysano hoggaanka dalka isboortiga wuxuu noqon doonaa waxyaabaha aan reform garayn doono waxyaabaha aan dib u eegi doono waxyaabaha aanu bedeli doono oo aanu madax bannayn doono waxaa la rabaa sida ciyaaraha loogu tartamayo in asagana loogu tartamo oo shirkad walba ay wax soo saarkeeda uu ku xirnaado inta game ay ciyaarto shirkadii 3 game ciyaartay shirkadii 5 game ciyaartay isku dakhli noqon mayaan taban ya TV-yada deynaya oo dinaya oo ay lacag qaataan dadka fiirsanay oo ay lacag bixiyaan yani wixii waxaan rabnaa inaanu ninka isboortiga ahay uu sanadkii soo gasho 200 waynu gaarsiinaa fanka waynu xoreynaa oo qofka fanaanka oo artiga sameeya hal abuurkiisii uu gadan karaa ee uusan in $100 la siiyo hadhowna cidla ku baqtiyo aysan dhicinin oo wuxuu marka waxaan rabnaa inaanu commercialize garayno oo aanu ka dhigno haybadna loo yeelo dhaqaalana uu ku dhisan yahay resource-na aysan ciriiri ku noqonin si isboortigu mar walba u kobco oo karaamo u yeesho oo sharaf u yeesho oo tiimamku dadka talentiga leh oo kubadda ciyaar yaqaana ay mar walbaba ay yihiin dad dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan iyo dadaal intaba aysan ciriiri noloshooda ku jirin waxa kale oo muhiim ah dadkii isboortiga ahaa soo ciyaaray dalkan magaciisa iyo haybadiisa kor u sidi jiray inaysan dayacmin oo aysan cidla ku gaboobin oo wax siya la weynin oo nidaamku leeyahay hanaan uu ku xanaaneeyo ugana warqabo kuna daryeelo dadkii wadankan u istaagay oo isboortigiisa taariikhda ku leh oo isboortigiisa magaca ku leh marka insha Allah waxaan rajaynaynaa haddaan guuleysano inaanu intaas wax badan ka bedelo waxaan rajaynaynaa inaan sii wada joogno sii wada shaqeyno hadda waxaan isleeyahay maadaama aad siyaasadda soo gashay waxyaabaha ugu muhiimsan oo la rabo in wax laga qabto waa isboortiga isboortiga meesha ugu dadku ugu taageerada badan yihiin waa meesha dhalinta yar ee soo kacaamaysa ay xooggeedu joogto waa meesha la rabo dadka in wax laga wacyigeliyo waa meesha wadada ugu habboon oo transformationkii ama isbedelkii wadankan lagu samayn lahaa ay tahay in loo maro marka aan wada shaqeyno aan wada dadaalno aan isgarab istaagno anigana waa igu tashanaysiin insha Allah taala 100% waan wada salaamaya marka aad baa u mahadsantiin kulanti waan caawi insha Allah marka soo noqotaana hadii Ilaahay yiraahdo
waa isu imaanaynaa waa idin soo dhaweynaynaa meeshaan oo kale insha Allah ku kulmi doonaa aad baa mahadsantihiin